waa madal kale iyo sanad kale oo si rasmi loogu dhawaaqay in isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanes loo doortay isbitaalka ugu wanaagsan Soomaaliya sanadkii 2025. waa markii toddobaad oo xiriir ah oo isbitaalku ku guuleystay bil sharaf noocaan ah. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin caafimaad, aqoon-yahano, ganacsato iyo hogaamiyaasha bulshada ayaa lagu bogaadiyay hoggaanka isbitaalka, tayada adeegga caafimaad iyo doorka uu ku leeyahay arrimaha bulshada iyo sida uga go'an tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ugu adeegaan si hufan oo daafuran. sidoo kale saddex ka mid ah dhakhaatiirta Soomaali Suudaanes Specialized Hospital ayaa ku guuleystay biladda dhakhaatiirta ugu wanaagsan Soomaaliya 2025 ee takhasuskooda, kuwaasoo lagu xusay aqoontooda qotada dheer, xirfadooda sare iyo xallinta xaalada caafimaad oo halisa oo ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan sida dhakhtarka ugu wanaagsan qalliinada maskaxda, laf-dhabarta iyo neerfaha, dhakhtarka ugu wanaagsan qalliinka lafaha iyo bedelidda kala goosyada, iyo dhakhtarka ugu wanaagsan qalliinka caloosha, beerka iyo xamiitada iyo laparoscopiga. maamulka isbitaalka uu magacooda ku hadlayay Dr. Cabdulqaadir Yuusuf ayaa sheegay in abaalmarintan ay ka tarjumayso dadaalkii joogtada ah ee dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dhammaan howlwadannada kala duwan ee ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanes, iyo sidoo kale kalsoonida weyn ee bulshada Soomaaliyeed ku qabtay isbitaalka. waxa uu carabka ku adkeeyey inay ka go'an tahay in ay sii xoojiyaan adeegga bulshada, isla markaana kor u qaadaan heerka caafimaadka dalka. aad caaw ugu faraxsanahay kalsoonida ay na siiyeen iyo codkooda sida ay noo siiyeen ummadda Soomaaliyeed oo ay noo doorteen sanadkii toddobaad oo xiriir ah isbitaalka ugu wanaagsan adeeg bixinta caafimaadka waddankeena sanadka 2025. waa ku mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed, waana ku mahadsan yihiin bulshadeena kalsoonida ay nagu qabaan. taasina waxay horseedi doontaa mar walba inaan laba jibaarno dadaalkeenni, hal abuurkeenni iyo inaan tayeeno adeegga caafimaad ee aan bixinno, sidoo kalena aan mar walba kordhino baaxadda adeegga caafimaad ee waddanka aan ku bixinayno si aan u daboolno baahiyaha ummaddeena ay leedahay, sidoo kalena ay uga maarmaan inay dibadda safarro kharash badan iyo maaragtay caynaab badan ama culays badan leh inay dibadda ku aadaan ama waddamo shisheeye u raadsadaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo tayadiisu sarreyso oo ay ku kalsoonaan karaan oo waafaqsan standardka iyo halbeegyada caalamiga inay ku helaan guryahooda, inay ku helaan deegaankooda. ilaahay idinkiisa waan ugu mahad celinaynaa annagana bulshada Soomaaliyeed mar walba kalsoonida ay nagu qabaan. isbitaalka Soomaali Suudaanes Specialized Hospital oo la aasaasay 2014 ayaa si joogto ah u ballaariya adeegyadiisa si uu la jaanqaado heerarka caafimaadka iyo halbeegyada caafimaad ee caalamiga. isbitaalku wuxuu door muuqda ka qaataa horumarinta, tayeynta iyo dhammaystirka adeegyada caafimaadka dalka, isagoo noqday isbitaal kalsooni weyn ay ku qabaan dadweynaha Soomaaliyeed oo ay ka helaan had iyo jeer daryeel caafimaad oo heer caalami ah. abaalmarintan waxay si cad u muujinaysaa heerka sare ee isbitaalka, dadaalka ay ku bixiyaan shaqaalihiisu badbaadinta nolosha, iyo doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin hoos u dhigidda baahida shacabka Soomaaliyeed dhanka caafimaadka. ama si kale haddii loo dhigo, wuxuu daboolay baahida caafimaad ee loo aadi jiray dalka dibaddiisa.